بسم الله الرحمن الرحيم وين سلامي دمانتينا وسو دوادا كورس كان او لوgu magac daray Flutter application development waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Yaasir Cabduqaadir Maxamuud marka koowaad hadii aan wax yar ka taabto Flutter waxa uu yahay Flutter wax kale ma ahan waa open source user interface oo loogu talagalay software development siiba qaasatan qaybta mobile applicationska Flutter-ka wuxuu ku ogolaan doonaa ama ku saamixi doonaa inaad dhistid applications mobile app web app iyo sidoo kaleeto desktop applications waxaan featureska aadka cajiibka u ah uu leeyahay waxa kamid ah in uu sheegan si dhaqsiyo badan ama uu markii loo fiiriyo kuwii hore programming mobile app programming kii hore markii loo fiiriyo waa uu ka fastest yahay ama waa uu ka dhaqsi badan yahay sidoo kaleeto wuxuu diiradda saaraa ama xoogga saaraa mobile app-ka qaasatan Android-ka iOS-ka iyo web applications-ka design aad u qurux badan waa uu leeyahay insha Allah waxaad si fiican uga bogan doontaan course-kan sida aad u sameyn kartid applications aad iyo aad u qurux badan indhaha customerska ama indhaha macaamiishana si fiican u soo jiidan kara waxaa jiro marka wax la yiraahdo Java iyo Kotlin Objective-C iyo Swift waxa la yiraahdo ayaa jiro intaba waxay quseeyaan mobile development ayay quseeyaan languages-kan markii aan si fiican u fiirino tusaale ahaan Swift-ga iyo Objective-C-ga waxaa loo adeegsadaa in lagu programmiyo iOS applications-ka ayaa loo adeegsadaa in lagu programmiyo halka Java iyo Kotlin ayakana sidoo kaleeto loo adeegsado in lagu programmiyo Android applications-ka in lagu programmiyo ayaa ayakana loo adeegsadaa meesha marka waxa kaaga muuqata ama waxa kaaga cad hadii aan si fiican u fiirino Java iyo Kotlin qofka programmerka ah wuxuu u baahan yahay in uu barto Java ama Kotlin si uu u programmiyo Android application sidoo kaleeto waxa kaleeto u baahan yahay in uu barto Swift iyo Objective-C si uu u programmiyo iOS applications-ka at the same time macnaheedu waxa waaye laba shay oo kala madax banaan waqti fara badan ka bixi karo awood fara badan kaaga bixi kara meeshaas iOS iyo Android developers kana waxay sanado fara badan ay waxay isticmaalayeen Kotlin iyo Java Objective-C iyo sidoo kale Swift-ga ay adeegsanayaan si ay u abuuraan iOS iyo Android application kadibna ay ugu publish gareeyaan Google Play-ga ama Apple Store-ka sidoo kale customerska ayakana waxay aad iyo aad u jecel yihiin in ay maxaa la yahay kambaniyada markii loo fiiriyo hal company in ay ka dalbadaan in loo programmiyo mobile applications oo isla waqti xaadirkaasna u shaqeyn kara Apple Store-ka lagu la soo dhigi karo ama ku shaqeyn kara iOS iyo Android-ka ku shaqeyn kara hadda hadii la fiiriyo qofka customer-ka ah waxay noqonaysaa in oo laba maxaa la yahay kala madax banaan oo u kala tago ninka xirfadiisa ay tahay in uu Android application sameeyo ama uu code gareeyo gooni ugu tago halka mid kale iOS-ka gooni u tago laba shaqo meeshaas loo kala qabto sidoo kale kambaniyada IT-da ah ayakana waxay u baahan yihiin inay shaqaaleysiiyaan wax ka badan hal developer oo ah iOS apps iyo halka mid kale kuwa kale ay noqon karaan Android apps intaas waxa kaloo sii dheeraadi ah mobile app developers waxay u baahan yihiin inay bartaan Java ama Kotlin si ay u develop gareeyaan Android-ka Objective-C ama Swift-C oo u develop gareeyaan iOS development-ga si ay u kordhiyaan ama ay u sare qaadaan fursadahooda ay ku heli karaan shaqooyinka labadaas shaqo fursadaha ay ku heli karaan si ay u dhameystirmato mobile development-ga qaabka ay u develop gareynayaan dhameystir fiican si ay u gaaraan marka waa halkan meesha uu ka soo galayo Flutter-ka marka Flutter-ka asiga waxaad isticmaali doonaa single code base si aad u abuurtid hal mobile app kaasoo ku shaqeynayo Android-ka iyo iOS device-ka mobilada Android-ka iyo mobilada iOS ku shaqeyn doono xitaa waxaad ku publish gareyn kartaa Play Store-ka iyo Apple Store-ka kadibna meeshaas waxaan dhihi karnaa Flutter-ka waa aad iyo aad ay cajiib u tahay wayna ka duwan tahay kuwii hore oo la isticmaali jiray
futuriska ee leedahay marka waxaa kamid ah maxaa kamid ah futuriska ee leedahay Flutterka futuriska uu leeyahay waxaa kamid ah fast development, expressive and flexible UI, native performance. marka Flutterka markii aan u fiirno kuwa kaleeto aad buu ugu qurux badan yahay designkiisa reflectivity-ga ama maxaa la falcelinta markii loo fiiriyo asigana waxa waa mid maskaxda markii laga dhex tilmaamo aad u dhameystirsan tahay wuxuu kaloo leeyahay futureka asigana native performance wax la yiraahdo Flutterka markuu wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo ama wax loo yaqaan widgets wax loo yaqaan ayuu adeegsadaa widgets-kaas insha Allah waxa si fiican u fahmi doontiin markii aan guda galno tusaalooyinka example-ada marka haddaba ujeedada inta aan u guda galin Flutterka horta ayaa adeegsado company aad u waaweyn ayaa adeegsado waxaana kamid ah Google-ki, eBay, BMW, Square, Alibaba Group, Capital One iyo kuwa kale oo aad iyo aad u fara badan insha Allah intaan qodobkan waxaan uga hadli doonaa ama ugu talagalay inaan uga hadlo saddex qodob hordhaca uu leeyahay Flutter waa maxay Flutter labo importance of Flutter muhiimadda ama ahmiyadda ama faa'iidada uu leeyahay Flutterkana waa maxay saddex Dart waa luqadda uu adeegsan doona Flutter asna sidoo kale introduction yar ayaan ka bixin doonaa kuwaan ku bilaawno marka Flutter maxaa la yiraahdaa Flutter waa open source user interface software development kit uu abuuray ama uu soo sameeyay ama uu soo saaray Google-ka ujeedada marka course-kan aan u bilaawin doono ayadana waa insha Allah in qofka developer-ka ah uu dhiso course application aad iyo aad u qurux badan in uu dhiso waxaana loogu talagalay in lagu dhiso high performance high fidelity apps-ka uu Android-ka iyo iOS-ka iyo sidoo kaleeto web adigoo adeegsanaysid kaliya single code base hal code base fiiriya meeshan almar Java ama Kotlin-ka markii aad isticmaashid si aad ugu programmisid Android-ka Swift-ga asna sidoo kaleeto aad isticmaashid si aad ugu programmisid iOS-ka iyo web applications-ka asna uu ka madax banaan yahay saddex shaqo meeshaas ka baxda laakiin Flutterka asiga shaqooyinkii tirada badnaa ay wuxuu kugu soo koobi doonaa hal shaqo halkaas shaqo oo kale ah u dhigmato saddexdii shaqo la qaban jiray ee u dhigmata ayadan ujeedka marka course-kan asiga waa in qofka developer-ka uu u saamixi karo inuu abuuri karo applications soo jiidasho fiican leh performance-goodana uu aad u sareeyo iOS-ka iyo Android devices marka loo fiiriyo ahmiyadda ama muhiimadda ay leedahay Flutterka muxuu yahay waxa hore u soo sheegnay hadda qofka markii uu rabo developer-ka mobile app developer-ka in uu baranayo Objective-C iyo Swift-ga iyo sidoo kale Kotlin iyo Java marka meeshan muhiimadda waxay noqon doontaa bedelkii oo aad baran lahayd Objective-C ama Swift si aad ugu dhisto iOS apps-ka ama Java iyo Kotlin si aad ugu dhistid Android apps-ka halkani Flutterka waxaad u adeegsan kartaa labadaas shaqo ayaad u adeegsan kartaa bedelkeeda si aad maxaa la Flutter mobile development framework-gaas oo aad ku dhisi doontid apps-ka kaasoo si natively ugu shaqeyn doono iOS iyo Android device-ka adigoo adeegsanaysid kaliya Dart programming language aad adeegsanaysid Flutterka marka fiiriya iOS-ka Android-kaba labada shaqo uu ku qabanaya hal code ayaad qori doontaa halkaas code aad qortidna labadaas app ayaad u kala adeegsan kartaa programming language-ka Dart muxuu yahay marka haddii aan introduction ka taabto asigana Dart horta waa object oriented programming language asna uu soo sameeyay ama uu soo saaray Google-ka sidoo kaleeto Dart-ga markii aad u baahan tahay qaybtan waa qaybta basic-ga ah haddii aad laakiin aqoon u leedahay programming languages-ka sida Java oo kaleeto C++, C# sidoo kaleeto Swift code Objective-C programming language haddii aad hore u soo martay Dart-ga marka insha Allah wax saas uga duwanna ma ahan waa luqadii hore la adeegsan jiray ayuu la mid yahay Dart-ga asiga haddii aad rabtid inaad gooni u baratid waxaad u baahan doontaa markii aad rabtid inaad qortid Dart program laba shay ayaad u baahan tahay shayga koowaad waxa waaye graphical user interface waa shayga koowaad oo loo yaqaano IDE oo ah integrated development environment waa graphical user interface software kaasoo kaa caawin doono inaad maxaa la programka ku qortid ku save gareysatid aad ku edit gareysatid kadibna Dart code-kii aad ku run gareysatid ayaa loogu talagalay software-kaasna waxaa lagu magacaabaa IDE integrated development environment ayaa lagu magacaabaa sida tusaale ahaan Android Studio kaleeto IDE ayaad adeegsan kartaa
waxaa kaloo ka mid ah IntelliJ IDE ayaa ka mid ah. sheyga labaad oo aad u baahan doonto wuxuu noqon doonaa software markii amaradaas oo dhaartiga aad qortid kuu turjumi doono, wuxuuna kugu turjumi doonaa lower level language si aad u abuurtid executable program. softwarekaasna waxaa loo yaqaanaa Dart SDK ayaa loo yaqaanaa. labadaas shay ayaad u baahan doontaa haddii aad rabtid inaad qortid programming language oo loo yaqaano Dart. haddaba waa maxay dadka ka qayb qaadan karo koorsadan oo ah Flutter Development Application? dadka ka qayb qaadan karo koorsadan waxay noqon doonaan haddii aad tahay qof beginner, waa in aad wax ka fahansan tahay any programming language. haddii aad wax ka fahansan tahay waad ka qayb qaadan kartaa insha Allah. sidoo kaleeto dadka jecel in ay mobile app developmentiga qayb ka noqdaan, developer ay ka noqdaan ayagana sidoo kaleeto koorsigan waa koorsigii lagu talagalay. fadlan ha moogaan insha Allah. la socod wanaagsan.